sanadii ugu dambeeyay shirkadda Shaaba oo kaashanaysa hay'adaha samafalka ee caalamiga ee ay gacan saarka la leeyihiin ayaa dadaal weyn u galay kayd biyood ku filan dadka ku nool magaalada Boorama iyo deegaanada ku hareeraysan kadib sahan iyo xog ururin la xiriidha sidii loo heli lahaa ceelal biyo ah ayaa ugu dambeyntii shirkadda Shaaba waxay ku guuleysatay in la helo laba ceel riig oo biyood ah kuwaasi oo ku yaala deegaanka Afraag oo kamid ah Abuqays isla markaana 17 kiiloomitir kaga beegan dhinaca galbeed ee magaalada Boorama inkastoo hore isku dayo lagu hormarinayo dhinaca biyaha ay ku talaabsatay shirkadda Shaaba ku dhawaad 10 ceel biyood laga hirgeliyay bariga magaalada Boorama saacaatee ceelashaas ayaa saameyn ku yeeshay hoos u dhaca ku yimid kaydka biyaha ee bariga magaalada Boorama si kastaba ha ahaatee arintaas ayaa soo afjaraysa walwalka dhinaca biyaha iyo mustaqbalka Boorama kaasoo laga dareemayay bartamii sanadkan aynu ku jirnay qaybo kamid ah magaalada Boorama isku soo wada duubo ceelashan ayaa la rajeynayaa sanadka soo socda qaybtiisa dambe ay ka mid noqon doonaan kaydka biyaha ee magaalada Boorama waa Cabdiraxmaan Jaamacaye Raya TV magaalada Boorama